السلام عليكم أصحاب شرفت له waxaa sharax lahaa 50b balse intaanan 50b aan sharxin waxaan rabaa shalay waxaan baranaynay xogo slide by slide ahayd marka maadaama slide ahayd oo yani halkii slide ba hal hadal oo ku qornaa wixii rabnaa marka inaan maskaxda recall ku sameyno oo aan dib u soo xasuusano intaanan 50b aan u gudbin si markaasi grammarkan waxaan leenahay xogo u fiirsasho badan u baahan yahay si markaasi laba celisna ay u noqoto qofkiina wixii hore usoo bartay maskaxdiisa wax xasuusato okay waxaan soo baranaa dhaanay marka hore waxa loo yaqaan personal pronouns baranay oo Soomaaliga naqanay magac u yeelayaasha shakhsiga because personal waxaan waa shakhsi pronouns waxaan waa magac u yeel waxaan baranaa marka magac u yeelayaasha shakhsiga ah dhawaankeena kuwaad ka soo ahaa okay personal pronoun waxa ku dhex jiray I oo naqanaysay aniga we oo naqanaysay annaga you oo naqanaysay adiga you oo soo laabanayso oo naqanaysa hadane idinka okay she oo naqanaysay iyada he oo naqanayay isaga it oo naqanaysay iyada ama asaga ama isaga absaadid sidoo kale waxaa loo isticmaali jiray sheyada waxyaabaha noola yacna sheyada iyo xayawaanaadka waxyaabaha nooleyn iyo xayawaanaadkana oo isticmaali karnaa okay iyo they oo ah they ayaga okay intaana kusoo baranay so intaan hadda meesha noogu qoran xarafkan imika laga raba intaan kale waa yar yihiin weyneen because xarafkaas sadar ku bilaabayso waxaa laga rabaa in uu weyn yahay laga rabaa so intaan hadda cusubnahay yaan qalad baranin markasto aan sadar cusub wax ku bilaabayso waa inuu weyn yahay marka wax qorayso intaana soo baranay intaana marka waxaan sameynay waxaan ku dhahay I okay waxaan kala qaybinay aan iska qorano first person oo singular maxay ahayd first person waxaan ku dhahay shid qof koowaad ee hadlayo I ahayd okay I plural كده maxaa noqonaa we okay waxaan soo hadalnay second person singular waxaan dhahnay okay pluralkan halkaas kasii qorano diyaarsano second person oo singular waa you dhahnay you pluralkeedana waxaa waa you leewa okay third personka
oo singular maxaan dhahnay okay third person singular plural kan aan qorano waa she oo plural kada noqonayso they waa he oo plural kada noqonayso iyadana they waa it oo iyadana jamceeda noqonaysa they mid kastoo kuwan ka mid ah jamcooda waa they okay shalay intaan baranay intaan baranayna markay kuwan personal pronouns-kii todobadan xabo sida ayay todoba waa you loo mar soo celin sideeda ka dhignay todobadan xabo ama sideedan xabo oo ahaa aniga annaga adiga idinka ayada asaga iyada ama asaga waxyaabaha noolan iyo ashyaadii loo isticmaalo xayawaanaadka iyo they oo ah ayaga intaana marka sii kala qaybin waxaan kala qaybin first person oo qof koowaad ee hadlaayo qof koowaad ee hadlaayo waxaan dhahnay singular iyo plural uu leeyahay I waa singularka jamaca waa we marka I jamceeda hadii u baahanta waa we you second personka oo singularka waa you jamceedana waa you third personka oo singularkana waa she iyo he iyo it ayaga mid kastoo kamid yani jamcoodana waa they marka intaas ashal baranay marka muuqaalka waxaan gudbaynaa oo aan kaga hadlayna 50b-ga inta muuqaalka xiga aan kula kulmayo waxaan kaga tagayaa horumar iyo caafimaad